wax kastoo hore aad u maqashay dib iskaga dhig. Dunidu maanta waxay helaysaa sir ka weyn sidii la moodayay. 3 milyan oo bog oo dokumenti ah ayaa gacanta lagu hayaa. Jeffrey Epstein nin aan magaciisa ka shashay xitaa iska dhaaf inaan kugu soo celiyo waayo waxan waa dhagahayga wax badan oo ku dhacay. Maanta dunidu waxay ka hadlaysaa in ka badan 3 milyan oo bog oo ay ku qoran yihiin siraha ugu madow qarnigan. Muuqaalkaani waxaan kugu tusi doonaa dhan ka duwan dhanka hore aad u maqashay. Ma dul istaagi doono yuu yahay Epstein, kuma uu ahaa, muxuu qaban jiray, dhibaatada uu gaarsiisanayna maxay tahay. Mis weydiinaysaa sababta ay madaxda adduunka ugu dhow yihiin inay gariiraan. Maxay xafiisyada New York iyo London ugu digayaan habeen kasto? Ma ahan oo kaliya dad taajiriin ah, laakiin waa dad aan maalin kasta shaashadaha ka aragno. Kuwa aad u haysato inay yihiin haliyeeyo ama hogaamiyayaal suuban. Maanta daha ayaan kaga qaadayaa wax dhabta ah ee ka socda daha gadaashiisa. Su'aasha naxtinta labaad isweydiinaysid waxay tahay ma suurtagal baa in hogaamiye aad aaminsan tahay inuu ku jiro liiskan? Jawaabta naxtinta leh ee ficilada hordhaca oo aan muuqaalkan ku soo bandhigi doono waxa ay sheegaysaa haa. Epstein muusan raadinayn kaliya saaxiibo. Wuxuu dhisay nidaam loo yaqaan honey trap. Wuxuu madaxda caalamka iyo boqorada iyo maalqabeennada ku martiqaadi jiray jasiiradii qarsooneed. Aynu dul istaagno jasiiradda sirta. Wax badan dhagahaaga waayay ku dhaceen jasiirad. Aynu dhaadhacno gudaha jasiiradda. Jasiiradani ma ahayn meel dalxiis, waxay ahayd warshad sirdoon. Dadka ka shaqayn jira waxa ay sheegeen qol kasta iyo xitaa musqul kasta ay ku rakibnaayeen kaamirooyin yar oo qarsoon oo casri ah. maxay qabanayeen? Epstein muusan ururinaynin muuqaalo isagu ku raaxaysta oo kaliya. Wuxuu dhisay kayd weyn oo ugu hanjabo madaxda blackmail database. Qof kasta oo caan ah oo jasiiradaasi yimaada waxaa laga duubayaa muuqaal isagoo dambi galaya. Muuqaalkaasi ayaa la dhigi jiray meel amaan ah. Haddii qofkaasi uu isku dayo inuu diido amarka Epstein ama saaxiibadiisa sirdoon, waxaa loo sheegi jiray haddii aanan maqlin muuqaalkaani ayaan dunida ku baahin doonaa. taasi ayaa sharxaysa sababta dad aad u awood badan ay u noqdeen adoomo u adeega Epstein. Isku xirka sirdoonka Mossad, CIA iyo MI6. halkani waa meesha ay sheekadu ka noqonayso mid laga naxo. Ma suurtagal baa in Jeffrey Epstein waa double agents ama basaas u shaqeeya sirdoonada caalamka? dad badan oo baaritaan ku sameeyay waxay rumaysan yihiin inuu u shaqeynayo sirdoon. hadafku wuxuu ahaa in la helo sifo lagu xukumo madaxda Carabta, kuwa Yurub iyo xitaa madaxda Mareykanka. ma isweydiisay sababta uu haystay diyaarad weyn oo loogu magac daray Lolita Express? diyaaradaas waxay ahayd dabin guurguuro. haddii aad aragto dawlad go'aan ka gaaraysa arrin muhiim ah oo muuqata mid aan macquul ahayn, dib u eeg. ama ma laga yaabaa in hogaamiyahaasi uu ku jiray daminka Epstein oo lagu haysto muuqaalo qarsoon? tani waa sababta faylashaasi hadda la furaya ay khatar u yihiin. waxayna soo bandhigayaan cidda dhabta ah ee dunida maanta xukunta. su'aal kale oo muhiim ah oo maskaxdeena ka dhex guuxaysa: maxay u dhimanayaan dadka og sirta? waxaa jira wax kale oo naxdin leh. waxaa jira war kale oo naxdin leh. Epstein wuxuu ku dhex dhintay xabsiga dhexdiisa sanadkii 2019 xilli uu ku jiray ilaaladii ugu adkeed ee dunida. kaamirooyinka xabsiga ayaa la sheegay inay xumaadeen habeenkaasi. aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay: ma isdilay mise waa la dilay si ay sirta u aasmato? laakiin asiga kaliya ma ahayn dadka dhintay. dad badan oo xog hayay ama isku dayay inay hadlaan ayaa waxa ay la kulmeen khatar weyn. maanta Maxwell waxa ay ku jirtaa xabsi qarsoodi ah, laakiin mar dhow waxaad maqli doontaan in ay dhimatay. dad badan waxay isweydiinayaan sababta ay u hadli laadahay Maxwell. haddii ay hadasho ama kuwo kale oo ayada la mid ah ay hadlaan, waxaa muuqan doona dad badan oo caan ah oo maanta dunida ay taqaano oo adigana aad aaminsaneed muuqaalkan inaad magacyadaas ku ogaa doontid in ay sheegi doonto. laakiin waxaa la diidayaa dadkaasi in aysan soo bandhigin. tani waa ciyaar ay ku dhimanayaan dadka sirihii hore ogaa si ay u badbaadaan kuwa hadda kuraasta ku fadhiya. muxuu shaqadaasi u qabanayay? wuxuu rabay kaliya inuu helo muuqaalo ceeb ah oo loo isticmaalo in madaxda loogu hanjabo. haddii hogaamiyo dal weyn xukumo lagu arko muuqaal isagoo dambi galay, marnaba ma dhihi karo maya anigan ma ahan qofkaasi. markii loo dhiibo go'aanada siyaasadeed oo waaweyn, tani waa sababta magacyada qaarkood loo qarinayo, waayo shaacintooda waxay dumin kartaa dowlad dhan oo dhisan maanta. arrinta kale ugu weyn waxay tahay qoyska boqortooyada iyo aamusnaanta culus. aan u soo laaban Ingiriiska. inkastoo Prince William iyo Catherine ay si rasmi ah uga aamusan yihiin, haddana gudaha qasriga weyn ee boqortooyada Ingiriiska waxaa ka socda gariir weyn. Prince Andrew ayaa wuxuu ku jiraa magacyada bartamaha faylasha. laakiin su'aashu waxay tahay maxay boqortooyada uga hadli laadahay? sababtu waxay tahay kiiskani ma ahan mid hal qof ku kooban. marka loo eego dhiiqada ka jirta New York iyo sida ay ugu xiran tahay saaxiibada Epstein,
waxaa jira baqdin laga qabo in faylasha soo socda ay farta ku fiiqayaan saaxiibo kale oo qoyska boqortooyada ugu dhow. Ma suurtagal baa in aamusnaantan ay tahay gaashaan lagu difaacayo sumcadda boqortooyada oo qarniyo soo jirtay? su-aashaas waa hilkadeed, halkaasina aan ugu soo laabano. haddaba aan isku xirno sanadkii 2017 iyo sanadkii 2019 waxaa jira degniino dhinaca sirdoon ah oo sheegaya in dhiiqo weyn ay ku soo socoto madax badan, gaar ahaan kuwa xiriirka dhowlo leh dalka Mareykanka iyo Imaaraadka. Epstein wuxuu ahaa buundada kaliya ee isku xirta maalka Carabta iyo awoodda reer galbeedka. Ghislaine Maxwell oo hadda xabsi ku jirta waxay og tahay magacyada 25 qofood oo dambiyada la oogi jiray ama la fulin jiray. dadkaasi ma madaxdu ay nuqaanaba mise waa dad gadaal ka maamula dhaqaalaha? aamusnaanta Maxwell hadda waxay calaamad u tahay in weli gorgortan weyn uu socdo. waxay leedahay haddii aan hadlo dunidu waa ay kumanaysaa. إبليس إنكرت أبو فهمه صاحب يال فيلاش إبستيان أنا وكلية شيكو دنبيا وقريرة سيد الدنيا اللي وقلت ليه يدو الله استعمالها أنجبات يريقو مركل فرو 6 مليون أو بوك يهوري على دولة أمريكان كا أفكس توحو وغان دونا وجي قدبتها مدحضة أو تاغيرو انت مقالك هدية اللي سو قارتي هذيك محاي كلتها مرو ميسانتا إنه قاميها أتقانيد وكجر ليس كان بدو مساء وحاب لين ساعة إن مقاعيد هو وين واللي قويدا لنقرين دونو فكرة هانتا هذا مقالتها إن لصواب بمدق دونو أم لصواب وجد دونو magacyada dadkaasi qarsoonaa. faalada igu noogu reeb fikirkaaga nala sooco oo hanaga dheeraanin, waayo dhiiqada aad ay u sii socon doontaa, waxayna gaari doontaa fict halka ugu sareysa ee wax walba ay gaaraan. mahadsanid.